tartan aqooneedkan loo qabtay 5 dugsi oo kamida dugsiyada hoose dhexe ee degmada Gaalkacyo kuwaasi oo kala ahaa ummadda Bardacad Sheekh Daahir Xasan Imam Shaafici iyo Biisto waxaana lagu qabtay xafladda dugsiga hoose dhexe ee ummadda munaasabadii furitaanka tartan aqooneedkan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta waxbarashada gobolka Mudug maamulayaasha iyo ardada iskuulada tartamayay iyo abwaaniin iyo macallimiin ka socda dugsiga sare ee Umar Samatar tartan aqooneedkan oo ahaa mid sare loogu qaadayo tayada iyo ka qaybgalka waxbarashada isla markaana lagu dhiirigelinayo ardada ayaa waxa soo qaban qaabiyay maamulayaasha dugsiyada iyo mas'uuliyiinta waxbarashada gobolka Mudug waxaana gacan maaliyadeed ka geystay hay'adda NRC mas'uuliyiin fara badan oo furitaankii xafladaasi ka hadlay ayaa waxa kamid ahaa Saciid Xasan Cusuble iyo waliba Abwaan Maxamuud Xuseen Ismaaciil Sigad waxa markii ugu horeysay afuritaanka xafladda ka hadlay Maxamuud Macallin oo isagu kamid ah mas'uuliyiinta waxbarashada gobolka Mudug tartanka u furmaya dugsiyada ee la filayo halkaan inay isugu yimaadaan oo ay soo bandhigaan waxa risaalada laga rabo inay gudbiyaan tartankaas oo isugu jira ama ka kooban waxbarashada iyo fariimaha xambaarsan waxbarashada ayaa la rabaa inay soo bandhigaan waxaan rajaynaynaa inay guul fiican inay ka gaaraan oo meeshii la rabay iyo himiladii laga rabay iyo wixii laga rabay haddii la yiraahdo inay halkaan ku soo bandhigaan dugsiyadaas ayaga ah waxaan aad iyo aad mahad ugu jeedinaynaa maamulayaashii iyo macallimiintii soo abaabulay oo sida fiican u soo diyaariyay waxaan rajaynaynaa ayaguna inay door fiican ay ka soo bandhigaan halkaan si loo soo maaragtay carbiyay inay u soo bandhigaan haddii la yiraahdo noloshu waa tartankana haddii la yiraahdo qolo unba guushu raacdaa waxaan rajaynaynaa qoladii guulaysatana inaysan isdheenin hadda wax walba waa gaarteen qoladii xoogaa laga guulaystana inaysan isdheenin inaysan moraal jibin oo aysan isdheenin hadaladii furitaanka kadib ayaa la guda galay tartan aqooneedkii iyadoo ardadu ay soo bandhigayeen suugaanaad qurux badan oo waxbarashada ku salaysnayd kale oo aad u fara badan ayaa kamid ahaa heesihii lagu soo bandhigay tartankaasi waxaase kale oo jiray gaaraaro aad u qurux badna oo iyaguna ka hadlayay waxbarashada waxaan la calaacalayo calooshayda gubaya caruuraha suuqa dhooban intii dheef aan la siinin ashada aan heli karayn cidoodkii sida dhurwaaga ilaa cirsirada seexda kuwa cararo qaraabta garaabada cayrsanaya baalishlaha cagacadaanta kombooyinka calafka doona culayska kuwa la saaray oo naftooda cadaadinaya colaadaha kuwa la geeyay oo curyaamaha caga ku waayay kuwa cudurrada riteen oo cidaawaysan aan haysan shaali waceel buu ku tuuray kuwan caawimaad haysan intaas oo wada ciqaada cadaabka adduunka kow ah ilaa nagu haysataayo uquba soo kama baqdaan madaxda macallimiinay uquba soo kama baqdaan munaasabadii tartan aqooneedkan ayaa lagu soo bandhigay riwaayado iyo maansooyin dhammaanba markaasi ka turjumayay dhibaatada jahliga iyo in waalidiintu ay caruurtooda u diraan goobaha waxbarashada kuwaasi oo dhammaan dadkii ka soo qayb galay ay si weyn ugu riyaaqeen cali maxamed cali ETN TV Gaalkacyo